بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وعنو وناكسن داوديال كسو دوادا برنامج كفيد وناكسن وحانا هاي فيصل ليغو. qodobada warka fiidnimaad ku daawan doontaana waxaa kamid ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud iyo 7 qof oo taariibiyaal ah oo ku dhimatay xeebaha Spain. qodobadaasi kuwa kale oo xiiso leh waxaad ku daawan doontaan barnaamijkeena fiid wanaagsan. haatan warkii oo faahfaahsan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. warkaasi oo faahfaahsan waxay inoo eegayso wariyaheena Hodan Xirsi Maxamuud. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku guda jira socdaalka nabadda iyo dib u heshiisiinta ee uu ku marayo qaybo kamid ah gobolada dalka ayaa gaaray magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. wafdiga madaxweynaha waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay Cadaado boqolaal shacab ah oo isugu soo baxay fagaarayaasha magaalada iyagoo ruuxaya calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda oo loo gudbiyay xarunta magaalada Cadaado ayaa halkaas kula hadlay shacab weynaha isugu soo baxay soo dhaweyntiisa isagoona ku amaanay wadaniyada iyo rajada wanaagsan ee ay ka qabaan dalkooda. waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan u xoojin lahayn maamulka kuna horumarin lahayn deegaanada Galmudug anagoo u horeyna dadaal kasta oo aan awoodno idinkana waxaa la idinka rabaa inaad sii laabtaan dadaalkiina ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa inta uu ku sugan yahay Galmudug waxa uu wada tashi la yeelan doonaa madaxda dawlad goboleedka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ku wajahan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta ee caasimadda maamulka Galmudug. Hodan Xirsi Maxamuud, barnaamijka fiid wanaagsan. 7 qof oo taariibiyaal ayaa ku dhimatay xeebaha Spain. faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hayo Afakaado Maxamed Axmed. 7 qof oo tahriibayaal Afrikaan ayaa ku dhimatay jasiiradda Lanzarote Canary iyaga oo isku diyaarinaya in ay gaaraan dalka Spain sida ay booliska dalkaasi sheegeen. 5 nin ayaa meydkooda laga dhaxelay dooni meel xeeb ah. booliska ayaa waxay sheegeen in 2 nin oo kale ay u suura gashay in ay doonidaasi ka baxsadaan kadibna ay dhinteen markii ay isku dayeen inay u doodabaashaan dhanka xeebta Tigos. sida ay sheegtay xukuumadda Spain muhaajiriintan ayaa asal ahaan ka soo jeeda waqooyiga Afrika. 18 qof oo kamid ah muhaajiriintaasi oo ka badbaaday doonida ayaa imika lagu dabiibayaa isbitaalada dalkaasi. waxa sababay dhimashada 5 qof ee doonida laga dhaxelay meydkooda ayaan wali la cadayn, balse booliska ayaa waxa ay sheegeen in laga yaabo in biyaha ay ku qarqameen. afayeenka u hadlay ciidamada ilaalada xeebaha Spain ayaa u sheegay wakaalada wararka AFP in 3 kamid ah dadka dhintay laga yaabo inay yihiin caruur. Afakaado Maxamed, barnaamijka fiid wanaagsan, Nairobi. dawladda Itoobiya ayaa sii daysay siyaasi mucaarad ah oo in muddo ah ku jiray xabsigeeda. faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hayo Ahmed Yusuf. dawladda Itoobiya ayaa daaqada ka tuurtay kiis ka dhan ahaa hogaamiye ka tirsan mucaaradka oo la xiray in ka badan sanad. sideenta hogaamiyaha Oromo Federalistic Congress Marere Gudina ayaa kamid ahaa waxyaabihii ugu weynaa ee ay dalbanayeen dibadbaxayaasha gobolka Oromiya. dhanka kale xeer ilaaliyaha guud ee dalka Itoobiya Getachew Ambaye ayaa sheegay in ka badan 500 oo maxaabiis ah la sii dayn doono maalmaha socda. waxa uu sheegay in marka hore ay tahay in maxaabiista ay maraan tababar dhaqan celin ah. xukuumadda Itoobiya ayaa sheegtay in maxaabiista la sii deynayo ay ku jiraan kuwa aan isticmaalin xoog si ay isugu dayaan in ay dawladda ridaan. kumanaan qof ayaa la xiray muddo 2 sannadood iyo dheeraad ah oo ay socdeen mudaharaado dawladda lagaga soo horjeedo. dhawaan ayay ahayd markii ay dawladda Itoobiya ku dhawaaqday inay sii deyn doonto dhammaan maxaabiista u xiran arrimaha siyaasadda isla markaana goobihii xabsiyada loo bedelayo madxaf qaran.
hay-adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ayaa dowladda ku eedaysay inay mucaaradka aan hubaysnayn caburiso. dhanka kale dowladda ayaa arrintaas ku tilmaamtay waxba kama jiraan. ma caddo sii deynta ay dowladdu ku dhawaaqday qaabka ay u hirgelayso, laakiin waa markii ugu horreysay oo dowladda Itoobiya ay ku dhawaaqdo inay sii deyn doonto dad u xiran maxaabiis siyaasadeed. magaalada Toronto ee wadanka Canada ayaa waxaa ku geeriyootay Allah u naxariistay Khadiija Cabdullaahi Camey Khadiija Dalays. wariyaheena Miski Maxamed Caate ayaa warbixin geeridaasi ku saabsan noo haysa. Allah u naxariistay waxaa magaalada Toronto ee dalka Canada ku geeriyootay fanaanada qaran Khadiija Cabdullaahi Dalays oo ka mid ahayd dumarka Soomaaliyeed kuwoodii ugu horeeyay ee ka heysay koonfurta Soomaaliya November 1952 xilligaas oo ay da'deedu ahayd 16 sano. Khadiija Cabdullaahi Dalays oo ku dhalatay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay sanadii 1936 waxay ahayd gabadhii ugu horeysay ee hees ka qaaday Radio Muqdisho. mar ay bixisay waraysi muddadii ay nooleed ayaa waxa ay ka warantay sidii ay fanka ugu soo biirtay. maalmaha ka mid oo khamiisa joornaalka Talyaaniga waxa lagu soo qoray Corriere dello Soomaaliya gabar heestaa la rabaa iskuulkan u heesi jiray waan indhaadka miiskan garaaci jiray ciyaalkoo dhan baan dabadidi jiray markaan arkay imtixaankii markaan dhiibaan dhuuntay idaacaddii baan tegay bishigaan allow kuu naxariisa maxamed bishigaan baan u tegay iyo fiqburaale ayaan u tago taagan albaabka idaacadoo dhanna waxaa ka shaqaynaya maxamed faarax dhaashne cabdiqaadir fuushane cumar xasan qaraab muusikiisadana 2 nin oo kaliya ahayn xuseen baajuun oo kamanka ah iyo Siciid Geeco. markaan tegay waxay yiraahdeen maxaad rabtaa buu yiri bishigaan ina Cabdullaahi Camey maxaad rabtaa Iswaa'il buu ahaa leegadii buu ahaa dadkii horseedku ahaa way garari waxaan adeer inaan heesaan rabaa wuu igu qosay wuxuu u yeeray fuqburaalena raajis buu u yeeray oo meesha ka afisha diritoore Talyaana haysta adigu waa meel dhexe uu madax ka aha warkana waa akhrin jiray markii sida ay dhacday uu yeeray xafiiska la geeyay gaalkii baa loo yeeray waxaan inaan heesaan rabaa sidii baan ku helay. heesteedii ugu horeysay ee halgudhigeedu ahaa Hoobaan Eko waxaa la duubay 14 November isla sanadka 1952. Khadiija Cabdullaahi Dalays oo ka mid ahayd fanaaniinta Soomaaliyeed kuwoodii ugu caansanaa waxa ay qaaday heeso badan oo isugu jira jacayl iyo wadani iyadoo ku qaaday afafka May iyo maxaa. Allah u naxariisto Khadiija Cabdullaahi Dalays oo ka mid ahayd fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku suntan hooyada fanka Soomaaliyeed waxay ku guuleystay dhowr bilood ay ku heshay heesa ay qaaday. Miski Maxamed Caato barnaamijka Fiid Wanaagsan. booliska dalka Canada ayaa beeniyay in la weeraray gabar muslimada Fawzaan Maxamed ayaa warkaas inoo haya. booliska dalka Canada ayaa waxay sheegeen weerar la sheegay in la isku dayay in gabadh 11 jir muslimad ah xijaabka looga jaro maqas uusan weerarkaasi dhicin. dhacdada gabadhaani ayaa warbaahinta qabsatay toddobaadkii aanu soo dhaafnay kadib markii ay sheegtay in nin sita maqas uu inta uu gadaal uga yimid isku dayay in uu xijaabka ka jaro. booliska magaalada Toronto ayaa imika sheegay in dhacdadaani oo ay u arkayeen in ay tahay dambi nacayb ku salaysan aysan gabi ahaanba dhicin. dhacdadaani ayaa caraka dhalisay dalkaasi iyada oo uu xitaa ra'iisul wasaaraha Canada Justin uu walaaciisa ku muujiyay qoraal uu bartiisa Twitter ka soo dhigay. kadib baaritaan faahfaahsan booliska ayaa waxay ogaadeen in weerarkaasi uusan dhicin. waxaa sidaas lagu sheegay bayaan kooban oo ay booliska soo saareen. booliska magaalada Toronto ayaa waxay intaas ku dareen in baaritaanka imika la soo gabagabeeyay. shir jaraa'id oo jimcihii ay qabatay gabadhaani oo lagu magacaabo Khawla Noomaan ayaa waxay sheegtay in ay xitaa ka baqayso in iskuulka ay dib ugu laabato. Sadiiq Maxamed Kilaas barnaamijka Fiid Wanaagsan magaalada Nairobi. Mareykanka oo ciidamo u diray xuduudda Suuriya iyo Turkiga oo hanjabaad ka bixiyay qodobkaasi oo faahfaahsan waxaa inoo haya Gorod Maxamed Cali. dowladaha isbahaysiga ee lugta ku leh dagaalka Suuriya ayaa ka soo horjeesaday qorshe cusub oo doonaya Mareykanka in xuduudda Suuriya iyo Turkiga uu ka hirgeliyo ciidamo gaaraya 50,000 oo ka tirsan Kurdiyiinta. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa qorshahan ku tilmaamay mid argagaxisnimo oo la doonayo in lagu khalkhalgeliyo amniga dalkiisa. wuxuuna wacad ku maray inuu ka hor istaagi doono qorshe walba oo lagu tababarayo ciidamadaas. dhinaca kale xukuumadda Suuriya ayaa ku tilmaantay weerar qaawan oo lagu soo qaaday dalkeeda halka Ruushka uu ka digay cawaaqib xumo ka dhalan doonta qorshahaas haddii la hirgeliyo. Gorod Maxamed Cali. warbaahinta dalka Shiinaha ayaa sheegtay in madaxweyne Xi Jinping ugu baaqay dhigiisa dalka Mareykanka in laga wada xaajoodo horumaradii laga gaaray barnaamijka nukliyeerka
ee kuuriyada waqooyi. wakaalada wararka ee shiinaha ayaa sheegtay in madaxweynaha shiinaha uu u sheegay madaxweyne Trump in xiisada hoos u dhacday ee kuuriyada waqooyi ay tahay in la sii wado. madaxweyne Xi ayaa sheegay in ay tahay in la abuuro xaalado ay dib ugu cusboonaan karaan wada hadallada iyo midnimada maadaama ay arrinta tahay mid muhiim. Mr. Xi ayaa xusay in shiinaha ay diyaar u yihiin in iyaga oo kaashanaya Mareykanka arrinta kuuriyada waqooyi xal loo helo. kuuriyada koonfureed iyo kuuriyada waqooyi ayaa lahaa wada hadallo ku saabsan sidii ay Pyongyang ugu qayb gali lahayd ciyaaraha Olombikada xilliga qaboobaha. ciyaarahan ayaa lagu wadaa in bisha soo socota ay ka dhacaan dalka kuuriyada koonfureed. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay barnaamijkeennii Fiid Wanaagsan. intaan barnaamijkan lamid ah ku kulmi doonno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo amaano Allah.